adduunka waxaa soo maray laba dagaal oo waaweyn. Labada dagaal ee adduunka soo maray waxaa la kala yidhaahdaa xarbul caalamiya uulaa iyo xarbul caalamiya thaani. waxaanay ahaayeen laba dagaal oo gumaad ba'ani u dhacay. malaayiin qof ayaa ku naf waayey, hanti aad iyo aad u fara badan ayaa burburtay. haddaba dagaalkii koowaad adduunku waxa uu dhacay sanadkii 1914 waxaana ka qayb galay dowlado aad iyo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka, Cusmaaniyiinta iyo dowlado kale. waxaana uu ka bilaabmay Bosnia sanadkii 1914 waxaana la sheegaa inay sababtiisa ahayd nin Serbiyaana oo xaq jiraha inuu toogtay dhaxal sugihii dalka Austria iyo xaaskiisiiba. sababta labaadna waxaa lagu sheegaa inuu yahay dagaalkii ka qarxay Yurub qarnigii 19aad kaasoo lagaga guulaystay dalka Faransiiska. ayaa uu Faransiisku doonayay inuu sameeyo argoosi muddo dheer, ayadoo taasina ay sababteedu tahay in Faransiiska laga haystay dhul aad iyo aad u fara badan. ta labaad, Faransiisku wuxuu ka baqanayay weerar laba celisa oo lagu soo qaado isla isaga. sababta saddexaad ee ka dambeysay dagaalkii koowaad adduunku inuu dhaco waxay ahayd quwadaha waaweyn oo loolan adag ugu jiray dalalka ay gumaystaan, taasoo Jarmalka lagaga sadbursaday, Jarmalkana ku noqotay mid aan u cuntamaynin, taasoo Jarmalka ula muuqatay in la qadiyey cidlo madhana la diray. sababta afraadna waxay ahayd khilaafkii dhanka xuduudaha iyo weliba badaha. Ingiriiska ayaa ahaana ka ugu quwadda weyn dhanka badaha marka la eego, waxaana daafaha adduunka u joogay ciidamo aad iyo aad u fara badan, aad iyo aadna u adag. sababta shanaadna loolan adag ayaa u dhexeeyey Jarmalka, Ruushka iyo Austria. Jarmalka iyo Ruushkuna waxay isku haysteen siday u kala qaybsan lahaayeen Poland. waxaana dagaalkii koowaad adduunka ka qayb galay 28 dowladood. dadkuna waxay ahaayeen 93% kuwa ka qayb qaata dagaalka si toos ah iyo si dadbanba. haddaba dagaalku wuxuu aad iyo aad uga socday oo si xun uga dhacay 3 qaaradood. saddexda qaaradood oo kala ah Aasiya, Yurub iyo Afrika. dhanka Aasiya, Masar, Falastiin, Ciraaq, Dardaniil iyo Qooqaas. dhanka Yurubna Talyaaniga, daanta galbeed iyo daanta bari ee qaaradda Yurub. Afrikana galbeedka Afrika. waxaana uu ahaa dagaalkii ugu horreeyay ee la isu adeegsaday gaas sunaysan. khasaaraha maal ee ku baxayay waxa uu ahaa 10 milyan saacadiiba. haddaba intii dagaalku socday, lacagaha ku baxay ma aha lacago la qiyaasi karo. dadka ambaba shakhsiyaadka ku dhintayna ma aha kuwa la tirin karo. haddaba dadka ku dhintay dagaalku may ahayn dad ka soo jeeda hal wadan oo keliya, ee waxay ka soo jeedeen dhammaantood daafaha dunida. waxaana isugu jireen dad dagaalka ka qayb qaatay iyo qaar aan dagaalka ka qayb qaadan. sanadkii 1914 waxau noqday sanad ku suntan oo caan ku ah inuu dhacay dagaalkii koowaad ee adduunka. dagaalkani waxa uu ku dhacay si lama filaan ah, waxaana la sheegaa inay ka dambeeyeen dhowrkaa sababood aynu ku soo sheegnay bilowgii sheekada. ay ka mid ahaayeen wadamo fara badan oo u tartamayay dal kororsi sidii ay u samayn lahaayeen. arrintaasina waxay xoojisay asbaabo fara badan oo keeni kara xaalad dagaal oo culus, iyadoo wadan walbana ay ka soo baxeen malaayiin dad ah oo u fikiraya si dadban, iyo weliba iyagoo aaminsan fikrado kala duwan oo abuuri kara xaalad dagaal. iyo sababtii kale oo ahayd dilkii dhaxal sugihii Austria ee uu dilay inanka Serbiyaanka. sababahaas ayaa la sheegaa inay ka dambeeyeen dagaalkii koowaad adduunka. haddaba marka la isku soo wada duuduubo, dagaalkii koowaad adduunku wuxuu bilaabmay sanadkii 1914 waxaanu dhammaaday sanadkii 1918 isaga oo socday muddo 4 sano. iyadoo adduun weynahana u noqotay wuxuu ka cibro qaato waxyaabo fara badanna ay ka kororsadeen. wuxuu ahaa mid qalbiyadooda kaga tegay raad, taasoo reebtay colaad hor leh oo iyaduna lama ilaawaana, taasoo dowlado fara badan
oo markii hore saaxiib ahaa u beddeshay dowlado iska soo horjeeda oo liddi isku ah. Dhacdadii dhacdayna may noqonin mid qalbiyadooda ka baxda amba si sahal ah lagu ilaabo, balse waxay noqotay mid qalbigooda ku suntan oo dhito u taalla ah, taariikhdana ka gashay baal cajaa'ib leh.